majartaan maskixiyan dad u fikra waay waa dadka adduunka ka gaday oo caalamka ka gaday Soomaaliya ciidan daarood ahayn ma maamuli karto falsafadda ay adduunka ka gadeen adduunkuna hadda waa haystaa sababtoo ay marka maxaa waay sax ma laakiin waa laga gada taa bedelkeed marka ayagana waxay gadeen hawiyaha seeba habar gidirta dad fighters inay yihiin dadka dilay inay yihiin dad waxay rabaan aan la aqoon macna marka hadii ayagu iska gadeen inay adduunka ka gadeen Soomaaliya cid maamul karta inay daarood adduunka ka gadeen habar gidir ama hawiyi inuu yahay dad aan waxba maamul karno inay wax dunshaan wax dhacaan kaliya raba adigana maxaa ku diidaya inaad adduunka u sheegto maqolaan adduunka wara qoolaa jirta adduunka ina annaguna u sheegno in nimankaanu xilka in lagu dilo maana aysan ka foqin nimankaanu xilka marka ay qabtaan in ay isku dhijiyaan oo dictator yihiin inaan u sheegno annaguna inaan badbaadino inaan u sheegno gaadana war aqoon majartaan la suri maayo waa niman tiro badan waa niman raba dadka mataqaanaa inay abiyus gareeyaan waa niman raba dadka inay gumeystaan waa niman raba dadka inay maskaxiin u qabsadaan la suri maayo haddaan la suurayn marka waxaa la rabaa in loo diyaar garoobo haddii siyaasad ahaan la isku qabto iyo haddii military ahaan la isku qabto iyo haddii dhaqaale ahaan la isku qabtaba in laga maarmi karaa la rabaa inaan loo baahan karin la rabaa raashinkii ka dagayay iyo baawurkii ka dagayay iyo howlihii kale ka dagayayba hubiyo inay baahidaas buuxi kartaa la rabaa waa in loo istaagaa meel fiicanaa la joogaa maskaxdu ha shaqaydo wixii gudaheennana dadku yani qabiil daris la iyo kuwa mataqaanaa xilal iska dhacdhacay iyo kuwa siyaasad isku haystay waxba la weymaayo laakiin danta guud aan u midowno nimanaa gambar gaaban noogu fadhiya maskixiyan iyo dhaqaaliyan inay nagu cuuriyaamiyaan rabe fadhigaan ka kacno salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu xilli kasoo idiin tahay habeen wanaagsan maalin wanaagsan maqaam kasoo leedihina sidoo kale waa idinku salaamayaa saaxiibada ila jooga waa maasan yihiin kuwa igu soo biirayana sidaas oo kale ayaan u soo dhaweynaya muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku dul istaago marka laga soo tago hawiye qolo meel u degtaa makansataa laakiin si gaar ah waxaan rabaa inaan ula hadlo habar gidir beesha leeyahay habar gidir oo maamulka galmudug iyadoo inta ugu badan deegaansata madaxna ka ah marka muuqaalkan inaan soo duubo cabasha keentay cabashadaas xagee ka imaatay waay cabashadaas dadka ku dhaqan gobolada dhexe gaar ahaan maamulka galmudug deegaanadiisa ganacsiga ugu badan iyo gaadiidka ugu badan waxay kala degaan magaalada la yiraahdo Boosaaso boqolkiiba 30 ma dhama wax hubiye ka dega runta isku sheegaynaa Soomaa maalinba dhibaatooyin la kulmayaan marka dadkaas maalinba dhibaatooyin ay la kulmayaan dadkaas maalin lacag canshuuraha dheeraada ku dar maalin wadada Boosaaso dhex martaa la dhisayaa inta boor sticker u soo sameystaan baawurka inta lagu dhajiyo hoolka laga soo bixi ma hayraadaan iidoon la bixin maalinba macna hawla yimaadaan marka sidaba xaaladu haday meel kugu qabsato sidaad ugu bixi leedahay la rabaa inaad ka shaqeydo ma aqliba misadadnima iyadoo galmudug degad ay leedahay oo kuwa kalena ay leedahay oo in ka badan ilaa gaan iyo celuur iyo dekadale oo hubi isku jir kuwa macmalka iyo waliba hubi hadda shaqeysa in dadkii ugu badnaa ee wax sameysanayay ama wax isticmaalayay oo dadka reer galmudug yihiin inay maamulka la ku tiirsanaadaan qabiilka maamulkaas iyo maamulka labadaba sharaf ma jirtaan wuxuu ka shaqeynaa marka inuu kala gooyo guudaan horta ganacsiga hawiye iyo isaaq waad ogtiin anagu marka hadda hawiyana magaalada la yiraahdo Berbera ayaa inta badan ganacsiga uu ka dagaa dhinacan soo aada ee gobolada dhexe ilaa ka sii xag shamiitada noogu degto raashinka noogu dego alaabaha kala noogu dego cabitaanada macdamka noogu dego badil marka iyagana waxay naga qaataan qudaarta ayaa ugu badan waxa mataqaanaa iyagana ay naga qaataan iyo sidoo kale ariga marka farsamo
waxaa la isticmaalayaa oo nimanka hadda majoritiina la yidhahda ay isticmaalayaan in yacni conflict oo dagaalka inta lagu saleeyo in la joojiyo maxay ahaato in annagana wax noo soo gudbaan ayagana ay wax u gudbaan annaguna markaas aan qasab ku noqonno meesha la yidhaahdo maadaama yacni tanaadka aan rabno oosan hubyo ka degi karin inaan garaacad oo hadda ay suuq u raadinayaan in maxay ahaato aan kala degno marka daaroodkii kale ee ku xirnaa berberana sida ogaadeenka iyo mareexaanka iyo kuwan hadda galdogu dawle la kasaa la yidhaha iyo waxaas waxay falsafad qabiil ayaa ayagana waxay ugu qasbanaadeen inay isticmaalaan garaacad ama boosaaso waayo dagaal la yidhahdo dagaalka hartida ama daarood iyo isaaq dagaal ah ani laxan ayaa la shiday marka qofkii daaroodka hay falsafad aan wuxuu aaminsan yahay inuusan isaaq waxba ka doonan karinba dagaal kala dhaxeeyo macnaha waa laxan nimanka ma jirteen la yiraahdo oo mandaqadaas dhex ku jira ay iyagu la yimaadeen waxaa marka la rabaa haddaad u jeedo xaalad sida ugu bixi lahayd sideedaba la rabaa qatar jirtana iska dabaaladeen wax way doqonnimo way haddeer 20% 30% hubyo la isticmaala mudug oo ay ku taalana dekad kale nimanka ma jirteen la ka furan siday u socoto marka waxa imaanaya iyadana in laga xiro maantay xilligan la joogo hawiye ma wuxuu dhisi waayay hubiyuu dhisi waayay dadka sida gaarka u sii deegaansada ma waxay dhisi waayeen hubiye dhisi waayeen ma waxay ka dhigi waayeen dekad dhammaystiran oo si caadiya oo bilaa shakar loo isticmaalayo waa 50-50 hadda waxay sababtay maadaama 50-50 ay tahay dadkan waxba uma kala haraan kii baabuur dirsanaya iyo kii raashin kala dirsanayaba dadkan waxba uma kala haraan marka waxaan u kala heray inuu 50-50 ka dhigo oo siday noqon doonto looga dadkan waa ka suurtagali waayeen waa sababta suurtagelisa marka in magaalada la yiraahdo Boosaaso baabuurta ugu badan dadka galmudug degan ay kala soo degaan ganacsiga ugu badan ay kala soo degaan marka ilaa intee sii socon kartaa waxaan ilaa intee sii socon kartaa hadda haddii conflict labadan maamul u yimaado ganacsigaas waa istaaga dekadaanuna baahiyaadka dadkaanu ay qabaan ma dhammaystiri karto soo marka soo xaq dadkaanu uma lahan in looga sii baaraandego haddii maamulka iyagu ay ku hoos nool yihiin oo maamul kale conflict kala yimaado inay helaan bedel kale oo dadkaanu ay samayn karaan hadda ma haystaan galmudugna kuma baraarugsana ma qabiilka meesha degan habar gidir liilaana kuma baraarugsana laakiin anigaas u soo istaagan in leh bajartaan la suri maayo waa niman tiro badan waa niman raba dadka ma taqaanaa inay abiyus gareeyaan waa niman raba dadka inay gumaystaan waa niman raba dadka inay maskaxiin u qabsadaan la suri maayo haddaan la suurayn marka waxaa la rabaa in loo diyaar garoobo haddii siyaasad ahaan la isku qabto iyo haddii military ahaan la isku qabto iyo haddii dhaqaale ahaan la isku qabtaba in laga maarmi karaa la rabaa inaan loo baahan karin la rabaa raashinkii ka degayay iyo baawurkii ka degayay iyo howlihii kale ka degayayba hubyo inay baahidaas buuxi kartaa la rabaa waa in loo istaagaa sheekooyin horena soo maray way jireen oo la lahaa intaas oo dhaqaala ayay nimanka ma jirteen ku bixiyaan dekedan si aysan u dhismin waxayna siiyaan hadba madaxdii meesha soo mari jirtay sheeko ah haddaysan dhab ahayn marka taas maantay dadka waxa isku xira hoggaanka isku xira hoggaanka marka maanta waxa laga rabaa inuu arrinkaas u istaago dadkaanu xoogay leeyihiin maalay leeyihiin muruqay leeyihiin maskaxay leeyihiin talay leeyihiin laakiin cid isku duuday leeyihiin wixii hadda ka horreeyay marka caqabadana haysatay ama hubiyo laga dhisi waayey ama si kale lagu midoobi waayey waxay ahayd culays amni oo argagixisada naga haysay hadda shabaab waa iska kicinay
ilaaha nooga gargaaray dhulkii ugu badnaa waa ka xoraysanay waxay naga haystaan male waa in marka loo soo jeestaa horumarin waa in loo soo jeestaa dekadaas maanta haddii loo istaago oo la tabantaabo oo ay cagaheeda ku istaagto dhammaystirmato qof habar gidira baagamudo noqoma qof habar gidira basaarada ku dhicime is arki maayaan qofka levelku raba ha joogo qof kasta waxaa ku filnaanaya wax meesha uu ka helo waa huba dadku marka in la abaabulay rabaan laisku keeno wax loo sheego la hogaamiyo waxaana taa samayn kara yacni dadka madaxda ah oo dadkan matala ama level madaxweynaha joogaan ama level dhaqan ha joogaan ama level ganacsato ha joogaan yacni dadka inay imaam helaan imaamuma jira in la hogaansha waayo hadda waxaad u jeedo inay dhici karaan maalintay dhacaanaan ku taga inaad adugu tiraahdahay waxa waaye daciifnimo waay maray xataa nimanka ma jirtan wax iska leeyihiin raashigii annaga nagu yidhahday waxba xagga naga soo aadi maayaan maxaa kuu badiila markaas badiil maxaa kuu ah nimanka la yidhahda hadda marka isaaq waxay u dhiganta marka isaaq iyo hawiye ganacsigiisii inuu rabo ma jirteen inuu kala jiro xataa daarood dhan ma waa ma jirteen daaroodkii kalena laxan qabiil uu geliyey oo dee inuu kula dagaashan yahay annagana maxaana loo isticmaalay hab siyaasadeed waa la celiyey wixii xagga u socdaa la celiyey ina iyaga wax aada annaga waxna la socdana waa la diiday marka dadkaana haddana waxa laga dhaadhicina maxaa idinka barbaradii kore oo fogeed idinku qarribaya dad gaalkacyo joogto iyo dad usmareeb joogto iyo dad cadaad joogto iyo dad gurceel joogto iyo dad beledweyne joogto waxaad isticmaashaa meeshan la yihahdo garaacda isticmaal maxaa adin mushkilad dheer iyo wareeg dheer iyo ku gelinaya in lacag badan lagaa qaato inkarqabaanu marka fiiri oo maayo waxaan danta laga leeyahay ilaa intay soconayaan waa run uu leeyahay tana ii fudud adi maa iskale marka hadday kuu fududda maanta haddii lagu ogaada beriyaa lagaa cirday karaa aan hele fakir maskaxdu ha shaqaydo sidaba ninkii ku yidhaha waxba ku siimaa wax qabsuu ku yidhi waxaan rabaa marka inaan kusoo gabagabeeyo majarteen maskixiyan dad u fikara waay waa dadka adduunka ka gaday oo caalamka ka gaday soomaaliya ciidan daarood ahayn ma maamuli karto falsafad la yidhaha ay adduunka ka gadeen adduunkuna hadda waa haystaa sababtoo haysta marka maxaa waaye sax maa laakiin waa laga gada taa beddelkeed marka iyagana waxay gadeen hawiyaha siiba habar gidirta dad fighters inay yihiin dadka dila inay yihiin dad waxay rabaan aan la aqoon macnaha laxankaas ayagaa gaday hadda habar gidiraha adduunka da ka sheegato qof wax lagu aqoonsanaya waxa waaye oo fighter daaroodkan waxa lagu leeyahay dimuqraadiyad iyo waxaasa marka waa laxan ayagu ay adduunka gadeen waay saxna ma taariikhduna hadda waaba qoran tahay oo wax gadaal loo raadina ma aha baara oo raadiya hal nin oo daarooda oo si nabada xilka ku wareejiyey midaan dad ku baabi'in oo aan dad ku dhiman oo aan dad isan ku barakicin oo aan dhiig ku daadano markuu xilka ka tegayay ma jirin ti hadda ugu dambeeyey oo mataqaanaa taliskii ayataanku xumaa midkii haddaysto farmaajo la yidhahyaa ugu dambeeyey waa lagu barakacay dadaana ku dhintay waad ogtiin magaalada muqdisho dadkii badbaadiyeyna habargidiri ahaayeen ilaa gadaal u sii raac cabdullaahi yuusuf ku tag maxaa siyaad bare taariikh qoran waaye marmana isdul taagi doonaa mid kasta waa isdul taagi doonaa laakiin macnihii laxanka ayagu ay adduunka ka gadeen iyo waxa ayagu ay yihiin waxa waaye farqi weyna u dhexeeyo marka haddii ayagu iska gadeen inay adduunka ka gadeen soomaaliya cidda maamuli karta inay daaroota adduunka ka gadeen habar gidir ama hawiyi inuu yahay dad aan waxba maamuli karino inay wax dunshaan wax dhacaan kaliya raba adigana maxaa kuu diidaya inaad adduunka u sheegto boqolaha adduunka war aqoonaa jirta adduunka inaan annaguna u sheegno in nimankaanu xilka in lagu dilo maahana aysan ka foqin
nimankaanu xilalka marka ay qabtaan in ay isku dhijiyaan oo dictator yihiin inaan u sheegno annaguna inaan badbaadino inaan u sheegno gaalada nagu dhaqoon yaa iyo kali u furay inay la hadlaan gaalada marka waxaas oo dhan marka maskax waay laakiin annaga hadda markii hawiye la yiraahdo wala si kala roon laakiin suguud wuxuu aaminsan wax ka maqan inay jiraan waxay haystaan ma balahanba war fadhiga ka kaca oo hadda fadhiga waaba ka kacdeeno hawiye fadhiga waaba ka kaco argagixiso balaayo ku heeday oo qabiilo kuwa Soomaaliyo annaga nagamida ay nagu hayeen gaala nagu heeday balaayo nagu heeday ilaahay dhinacu noo dhaafi xooggood dhinacu noo dhaafi waayo maanta dhulka hawiye boqolkiiba 10 ma ahane inta kale shaawa ka hor boqolkiiba 10 ma dhamo inta dhulka hawiye oo shaa maanta oo haysto ama uu ku sii dambeeyo ku sii dhuumanay ma dhamo halkaas ay koonfurta nu cirdahayna waxaan rabaa marka inaan ku soo gabagabeeyo meel fiican la joogaa maskaxdu ha shaqeydo wixii gudaheennana dadku yani qabiil daris la iyo kuwa mataqaana xilal iska dhacay iyo kuwa siyaasad isku haystay waxba la weymaayo laakiin danta guud aan u midowno nimana gambar gaaban noogu fadhiya maskaxiyan iyo dhaqaaliin inay nagu curiyaamiyaan rabe fadhigan ka kacno aad iyo aad waa maasantiin